farxad way bay tahay inaan caawa fursadan helo oo intan oo dadkii ugu muhiimsanaa gobolka Togdheer inaan la hadlo oo hortooda hadalka jeediyo waxaan jeclaa in shirweynihii kadib aan halkan soo baxo oo fursadan intan ka horeyso hase yeeshee duruufihii jiray may saamixin isaga warqabteen waxaan u baxnay safar dibadda oo kula soo hadlaynay beesha caalamka kadibna safar yar oo Yurub aan u baxay maantum bilaahi suurtageliyay inaynu soo nimaadno laba xaalo waa ka warramayaa oo mid waa xaaladda guud ee dalka 18 November bishii hore ee dhamaa bishii 11aad ayaan u baxay safarka dibadda 18 gelinkii hore axsaabta qaranku kulmiye iyo ucid iyo wadani waxay la kulmeen guddiga doorashooyinka qaranka xisbiga kulmiye maxamed kaahin baa ka socday wasiir daakhilina gudoomiye ku-xigeenna Faysal iyo Xasan waa joogeen anna waan joogay komishanka waxa warkooda ku koobnaa doorashadii madaxtooyada waanu diyaarinay beesha caalamkana waanu gudbinay Nairobi waanu ka nimi hadda waanu isla qaadanay waan aqbalay wixii aan uga baahnayn farsamo iyo dhaqaaleba madaxweynahana 3 cisho ka hor baan u gudbinay isna uu nala qaatay waxaanu yiri berbera madaarkan soo furayaa marka soo noqdo ayaynu hawsha dhamaynayna waxa berbera markuu tagay gudoomiye cusbaa ee wadani iyo gudoomiye Faysal madaxweynuhu kulanka uu ku furayay ama xafladda uu ku furayay berbera ayaa isbedelkii ugu horreeyay ka muuqday wuxuu dagaal ku qaaday axsaabtii iyo gudoomiyeyaasha wuxuu kaloo baajiyay kulamadii uu la lahaa guddiga doorashooyinka qaranka waanu ilaa maanta la kulmin taa macnaheedu waxa weeye dariiqii doorashada uu ka leexday sida ka warqabtaana waxa uu bilaabay in la abuurmo jawi muran ama khalkhal siyaasadeed iyo muran dastuuriya marka nuxurkeeda la soo gaabiyo murankaas maadaama uu ka leexday wadadii doorashada muuse waa cad yahay warkiisu wuxuu ka doonayaa wax la yiraahdo muddo kordhin ururadani waa ku gabad baa la furayaa urur laakiin qasdigiisu kama qasdigiisu waxa weeye inuu doorashadii muddadeedii dhaafiyo dabeedna muddo kororsi oo helo waxaanu anigu diyaar u ahay inaan xaalad ama arrin sharci darro ah wax kasta haday tegayso qiimo kasta haday tegayso inaan sina aqbalin waanu cadaynay ururada inaan ka soo jeedin ururadan waxa ku furmayaan sharciga ururada furayaana oo xeerka la yiraahdo 14 oo la sameeyay xilligii aanu gudoomiyaha golaha ahaa madaxweyne Siilaan oo ahaa madaxweynaha xeerka loo dhaqan gala oo dalku leeyahay ma jiro midcan kamida oo kaabisi wax ka bedel golii hore sameeyay oo madaxweynaha loo geeyay soo diiday
oo waraaq 3 beej ku soo diiday oo ku tilmaamay qeyr dastuuri sababtoo ah wuxuu ka hor imanaya doorashada madaxweynaha sidoo isagoo ku sababeeyay wuxuu ka hor imanaya doorashadii guurtida iyo laba sababood oo kale ayuu ku sababeeyay inuu soo celiyo hase yeeshee khilaaf ka dhashay baarlamaanka ka warhaysay ayuu madaxweynuhu u arkay fursad dabeetana halkaasuu murankii ka bilaabay uu doonayay go'aanka xisbiga wadani iyo axsaabta mucaaradka iyo anigoo musharax madaxweynaha waxa weeye inaanan sinaba u ogolaanin wax sharci darro ah waan isku dayaynaa dariiq kastoo sharciya inaanu sharciyadda ku soo celinno waan isku dayaynaa ujeeddada iyaduna ma aha inaanu dalkana khalkhalino waayo inaanu madax ka noqonnana doonayna laakiin waxay u eg tahay madaxweynuhu dee isaga ah madaxweynihii dastuurkana wuxuu farayaa oo ku waajibinaya inuu dastuurka iyo xeerarka ilaaliyo waxaanu dastuurku waajibinaya hadduu ka leexdo wuxuu mutaysanayaa maamuska xayuubin wax la yidhaahdo maamuska xayuubin waxa awood u leh golaha wakiilada hadduu dee ku wado sidaas dee way iman doontaa oo laga xayuubin waxaan idinku imi inaynu iswaraysanno xisbigu wuu koray muddada ayuu jiray xisbiga ugu daayar weeye wuxuu noqday xisbiga ugu weyn maanta wadani xisbi الحاكم baa jiro kulmiya la yiraahdo annagu siyaasiyan wadani ama reer wadani ba waxaanu qabnaa siyaasadii inaynu kaga adkaanay kulmiye waxaana maraka doorashadii ugu dambeysay baarlamaanka iyo deegaanka isagoo xisbi الحاكم baynu ka adkaanay waxaynu kaga adkaanay golayaashii deegaanka 6 gobol beberu ka helay golii wakiilada mucaaradku 12 bay heleen wadanina xisbiga ugu ballaaran buu noqday shirgudoonkii awgeeyay dagaalkii ka dhacayna waa laga guuleystay xukuumadda wadani baa ku guuleystay waxaanu qabnaa siyaasadii arrimaha dawladda inaynu kaga guuleysanay waanu kalsoonida beesha caalamka kaga guuleysanay maanta wadani cid kasta oo samaysay research ama baadhis ama gaala ha noqoto ama muslim ha noqoto ama Soomaali ha noqoto ama mid wadani raacsan ha noqoto ama mid wadani diidan ha noqoto waxay isku waafaqsan yihiin haddii doorasho la qabto wadani baa helaya taasi waa tamuusatiinka jiirsiisay ee sharciga ka leexisay waxaan idinku imi inaan idiin warramo aniga go'aankayga waan idiin sheegay waxaan isku dayaynaa waddo kasta oo loogu soo celinayo sharciyadda muuse inaanu ku soo celin haddii lagu soo celin kari waayo waynu ka tashanaynaa